madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in asbuucii la soo dhaafay ay markii koowaad xubno mucaarada ka dalbadeen inuu qayb ka noqdo qoraal wadajir ah oo lagu cambaareynayay tallaabadii uu madaxweyne xasan sheekh ku burburiyey golihii wadatashiga qaranka. laakiin sida ay la xoogaala u sheegeen adduunka TV waa ka cudur daartay Farmaajo in magaciisa lagu daro qoraalkaas. 16 xubnood oo mucaarad ah oo qaarkood aanay macaamilin oo ay isdiidan yihiin ayaa hal warqad soo wada saaray dhowaan. qof walba qofkii ay isku fiican yihiin ayaa loo dirayay maadaama 16kaasi xubnood ay qaarkood si weyn isu dhaleecayaan oo ay kala fog yihiin. Farmaajo markii lala xiriiray iyadoo la rabo inuu aqbalo in magaciisa lagu daro warqadaas diyaarsaneed waa uu diiday wuxuuna soo saaray mid isaga u gaar ah oo uu ku diidan yahay habdhaqanka madaxweyne xasan sheekh. waxaa cajiib ahay in warqaddii uu Farmaajo keligii soo saaray inay ka saameyn iyo hadalhayn badatay midii ay ku qornaayeen 16 siyaasi ee kale. markii hore xubnahan kale ee mucaaradka ah iyagaa diidanaa inay Farmaajo wax ku darsadaan oo ka cararayay, laakiin markii asbuucii la soo dhaafo u baahdeen in qoraal midaysan looga hortago tillaabooyinka madaxweyne xasan sheekh, waa diiday Farmaajo inuu wax ku darsado rag aan isku urahayn balse isku warqad ah. haddaba su'aasha ay dad badan isweydiinayaan waxay tahay Farmaajo ma ku faa'iidi doonaa inuu ahaado siyaasi goonudaaq ah? markii dhowr arrimood la eego madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa u fiican inuu mucaaradnimadiisa, ololihiisa iyo aragtidiisa xukunka inuusan dhex gelin rag aan intooda badan xil madaxweyne rajo ka qabin balse musharaxnimada iyo mucaaradnimada bil ku raadsadaa. markay mucaaradku dhan isu tagaan marka laga reebo Farmaajo oo ay hal qoraal soo saaraan sidii dhacday toddobaadkii la soo dhaafay, shacabka, warbaahinta iyo xitaa dawladdu waxay sugayaan waxa uu Farmaajo gaar u dhihi doono. laakiin haddii uu ku biiro mucaaradka isku warqadda ah, degdeg ayuu Farmaajo u lumin doonaa saameyntiisa shacbiga ah, middiisa warbaahinta, iyo marka ugu dambaysa inuu ku dhaqan noqdo siyaasiyiinta isu beddelay idaacadaha ee maalintii dhowrka jeer hadlaa. waxaa kaloo jira mashruuc ay mar kale dowladda Imaaraadka Carabta ku dhisayso hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, kaas oo ay 100% u arkaan Imaaraadku qofka ay ka heli karaan danahooda Soomaaliya haddii uu madaxweyne noqdo. dadka qaar ee hadda mucaaradka loo yaqaano waxay gobol xaar u yihiin mashruucaas oo ay lacag ka dhex raadiyaan. Farmaajo wuxuu ahaa siyaasi aad uga fog dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta intuu xukunka joogay. inuu hadda aqbalo ku biirista madal la yaqaano musharaxeeda dhabta ah waxay dadka siin kartaa inuu Farmaajo soo rajo dhigay, uuna ka guuray qabkii, ajnabi nacaybkii, iyo inuu ku qancay habkii mucaaradnimada ee weligii lagu dhaqmi jiray ee ahayd qofka xukunka jooga ha baxo kadibna waxba igama gelin cidda madaxweynaha noqonaysa. dhowaan waxaa soo baxay warar sheegaya inuu Farmaajo kula kulmay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga xubno ka socday dowladda Imaaraadka Carabta, laakiin markii aan baarnay jiritaanka warkaas xoguhu waa isdiideen, welina ma sugna warkaas. waxaase haddii warkaas dhab noqdo Farmaajo lumin doonaa sumcad, shacab iyo aragtidii siyaasadeed ee loo yaqaanay. gunaanadku waa inay Farmaajo ugu badin karto inuu ahaado goonudaaq siyaasadeed, waxaana ku biirista mucaaradka isku warqadda uga macno badan inuu dhisto tiim cusub oo macno leh oo ololihiisa xoojiya, oo ay ku jiraan dad Soomaalidu aqbali karto oo aan shisheeye shaqaale u ahayn, iyo inuu dadweynaha ka qanciyo qaladaadkii ka dhacay dowladdiisa.